gudoomiyaha gobolka Sool Cabdullaahi Jaamac Diiriye oo weheliyo taliyaha qaybta booliska ee gobolka Sool Maxamed Axmed Guutaale ayaa maanta degmada Xudun oo ka tirsan gobolka Sool booqasho ku tagay isla markaana furay shir lagu heshiisiinayay laba beelood oo daris ah oo kala deegaanada Og iyo Xudun waxaana gudoomiyaha madashaasi shirka ka hadlay uu sheegay in loo baahan yahay in si nabadgelyo lagu dhameeyo wax kasta oo dhex yaala beelaha dariska ah cidii nabadda ka shaqeyn weyda waxaan kala xisaabtamaynaa marka ugu horeysa عاقلكاس اسم كانوا كلا سنة اسم نقول ما يهديه باشي النبض لجواي أو عروتيسو يدكيسو أي نبض حميان ما نقول يديس بدم بق أو نظام كاس نبضه ليت كل نقطة أو لغة القانون كريه هذا إنه معمولك ما تشرته هذه عاد بدو ما سنتهين شركة نبضه جوشن نبضه بيلود لجوه شيء وحنا يقبرينا إن أي شركة سوون نقطة shirkii lagu najaxo waxa halkaas kelmadiisa ka jeediyay maarka degmada Xudun oo sheegay in muddo ay wadeen sidii loo qaban lahaa shirkan sheegana in maanta uu xariga ka furmay lana sii ambaqaadi doono sidoo kale waxa halkaas ka hadlay taliyaha qaybta booliska ee gobolka Sool oo tilmaamay in nabaddu ay tahay shay muhiim ah cid kastaana ay u baahan tahay waxaa isna halkaasi ka hadlay Suldaan Cali Cumar Saalax oo kamid ah ergadii isugu timid shirkaasi waxaana ku dheeraaday in si wada jir ah looga shaqeeyo nabadda sidoo kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay caaqil dhowr ay kamid ahaayeen caaqil Maxamed Askar Jaamac caaqil Cali Faarax Amey iyo waxgarad kale oo badan Maxamed Ismaan Cabdi Nuur Somali Channel TV Laasanood